عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا قيمها له أصحابتا أهلك خرابدا وحمرك ورؤوتا عسيني الله أنحريستي ولالكي صاحبكي جنرال فرحان محمود آدن فرحان قرولي oo saakay lagu dilay deegaanka Basra ee duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaan marka hore tacsiyo u dirayaa marwooyinka generaalka, hooyadiis, walaashiis, walaalihiis, aabihiis, inta la dhalatay dhammaan. waxaan leeyahay saaxiibkay walaalkay General Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaanay Farxaan Qaroole. waxaa maalmo ka hor uu ka laabtay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska ee howlo shaqo u yimid. waxa uu joogay waddankan aan ku suganahay Belgium, wadamo kale oo Yurub ka tirsan. 3 maalin ma maqnaa umaleyna. Arbacadii hore buu yimid, waa kulannay, kule xamar ku noqday in howlo looga baahan yahay xamar oo ii sheegay. Turkigan wada joognay. waxaan halkan ku hayaa horta waa kitaab Quraan Kariim. Farxaan shabaab ma dilin, Farxaan dawladda dishay. xataa asaga kaligiis lama dilin, istaafkiisa la dilay. Farxaan istaafkii la socday baa la dilay. waxaa telefoon ku soo wacay Maha Salaad. waxaa dilkiisa laga abaabulay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. howlgalka saakay lagu dilay General Farxaan waxaa qayb ka ahaa Maha Salaad. Farxaan haddii qof dishay, Maha Salaad dilay. Farxaan hadduu qof dilay, Maha Salaad dilay. Farxaan horaa lagu hanjabay, horaa digniino badan loo siiyey, qataro badan hore ugu shaqaynayay. laakiin taliyihii ciidanka Haramcad ee Farxaan ku xigay hubka dhigis lagu sameeyay markuu diiday Basro. Basradan maalina la galo, maalina laga soo baxo, micnaheedu waa fahmi waaniga oo Maha Salaad Balcad u fadhiistay howlgalkeeda. General Farxaan dilkiisa Balcad laga aawulay, Maha Salaadan abaabulay. Farxaan wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah, wuxuu ahaa aabe ku dhawaad 10 carruur ay u joogaan haddaan qaldanin carruurtiisa. Uganda, Muqdisho iyo meelo kala duwan. marka waxaan leeyahay generaalka Allah u naxariisto,
walaashay hooyadiis allaha sabar iyo iimaan ka siiyo aabihiis allaha sabar iyo iimaan ka siiyo generaal farxaan wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah wuxuu ahaa generaal isagoo 30 jir ah darajo ciidan oo intaas la eg gaaray oo kuwii ka waaweynaa ay joogeen waxaan leeyahay farxaan wuxuu ahaa nin ahlu salaad ah bishii agoosto iyo julaay midayd ma xasuusto waxaan wada joognay turkiga ankara hadda oo lagu jiro octobarna waxaan wada joognay yurub marka waxaan leeyahay farxaan allah u naxariisto sabar iyo iimaan allah ka siiyo eheladii qaraabadii asxaabtii uu ka tegay in xilka laga qaadayo farxaan lagu sheegay in laba xil uu isku hayay mid loo reebi doono nin xilkiisa gorgortan lagula jiro ahayba farxaan xilkiisiyaa gorgortan ku jiray wallaahi oo bilaahi oo tolla magac ilaah ku dharanaya haramcad aan kuu dayno booliiska gobolka banaadir aan kuu dayno farxaan nin qabiil ma ahayn waxaan xasuustaa hadda ka hor inay u yimaadeen odayaal beesha uu ka dhashay farxaan farax rooble reer xaaji saleebaan ay ku yidhahdeen madaxweyne xasan baan u tegaynaa waa kuu geynaynaa farxaan wuu diiday wuxuu yidhi aniga nin qabiil ma ihi nin shaqa ahay dowladda hadday ii baahantan waa u shaqaynayaa hadday ii baahneenna u shaqayn maayo marka farxaan oo kale in damjadiid ay dhagar ku disho xitaa xabad way u quuri waayeen farxaan xabad meydkiisi minay ku qarxiyeen asaga iyo staff la socday miina lagu qarxiyay farxaan miino inta la dilay marka waxaan leenahay dowladnimo noocaas oo kale loo shaqayn maayo warbac muxudiin warbac taliyihii dhalinyarada ahaa ee nabad sugidda ee gobolka banaadir waxaa hoteelka lagu beegsanaya asoo ahaa oo lagu mishiimaya hotel oo xitaa darajadiisii looga daba dhacay awooddiisii ciidan ee nabad sugidda marka waxaan leenahay halis middanka weynaa soo socota farxaan wuxuu ahaa saaxiibkay wuxuu ahaa walaalkay marna ma iloobi doono laakiin kuwa dilay maanta dhibay qaban kuwa farxaan maanta ku dilay basra war saddex habina laga soo wacay faransiiska kaale imaaw howlgalkii fanaxaa diiday taliyihii haramcad ka hoosiyaa diiday howlgalka kaale adigu hogaami howlgalkan farxaan oo ku dhimanayo maha salaadii ku la socday wax ku noqonin micnaha ka dambeey cid fahmi karto waa fahmi kartiin farxaan waxaa lagu haystaa maxaa farmaajo ula shaqaysay maxaa dowladdii hore ula shaqaysay war farxaan damjadiid oo hore xasan sheekh uu la shaqayn jiray allah u naxariistee marka waxaan leenahay walaalkay farxaan allah u naxariisto maanta maalin iga xanuun badan iga murugo badan ma jirto waa hadli lahay wallahi dhunta ay kala xiran marka waxaan leenahay walaalkay farxaan mar kale waxaan tacsi u dirayaa saaxiibaday kuwa ku qoyska ah kuwa ku qaraabada ah dadkii hal uma sheegi kara magacyadooda waxaan codsanaa in baaris lagu sameeyo dilka generaal farxaan kolley aniga aragtideeda wuxuu ila ahaa dil qorshaysan mission issanation la abaabulay marka waxaan leeyahay haddii ehel uu leeyahay ninka xildhibaano uu leeyahay senator uu leeyahay senatorkiisu waa Saciid Siyaad kolley hadda xildhibaan kaloo wax galo oo cabdiraxmaan odowaa aan ahayn oo beeshaas ka tirsan oo ogahay ma jiro iyo senatorkaas Saciid Siyaad ayagaa looga fadhiyaa odowaa in kastoo nin muctarifa oo siyaasi ah oo wax badan og uu yahay ma dhahayo odowaaya maanta lagu lahaa dilkiisa malihi odowaa wax ka abaabulay laakiin odowaa wuxuu ahaa nin farxaan had iyo goor tala iyo tusaale la garab taagan wuxuu ahaa saaxiibkiis wuxuu ahaa adeerkiis wuxuu ahaa abtigiis nin dhinac kasta kala talin jiru waa odowaa allah naxariistay farxaan marka odowaa waxaan ka codsanayaa anoo maanta siyaasaddii meel iska dhigayo in baaris lagu sameeyo in dilka farxaan baaris lagu sameeyo farxaan maalin jimco u dhintay maanta waa jimco kulle kitaabkaas jaamac waxaan ku dhaaran karaa farxaan inuu ahaa nin ahlu salaad ah nin sadaqo badan hadda waa magaca ilaahay baan ku dhaaranayaa turkiga intaan wada joognay farxaan xataa gurigu kuma tukan jirin
goobaha la isugu yimaado oo maqaayadaha iyo restaurantiyada waaweyn kuma tukan jirin masjidku aadan jiray waxaan joognay ankara meel la yidhahda kasalay in la yidhahdo kasalay god hoos oo taraamyada laga raaco meesha masjidku yaala ku tukan jirnay hadda wallahi ilaahay ka baqay waxaan weydiiyey farxaanow markaa xamar joogtid si u tukataa intiisa ku tukataa ma guriga ku tukataa ma masjida ku tukataa markhaatiya leedahay farxaan nin sadaqa badan ahlu salaada wuu dhintay ee ammaan igama ah laakiin waxa hadda halkan ku hayaa waa kitaab jaamac waa kitaab farxaan inuu ahaa nin ahlu salaada nin sadaqa badan anaa maalinta adduunya maalinta aakhira lagu soo istaajinaya nin sarkaal waa qaladaad waa dhici karaan way ka dhici karaan mali waxba qalad kama dhicin laakiin sidiisa kale nin dhalinyaro oo fiican wadani ah dalka iyo dadka u fiican u ahaa laakiin dad baahan waa dalkii ku habsaday qof kasta oo muxtarim oo waxgalo weydilayaan basra isbuuc ka hor farxaan in lagu dilaa la rabay laakiin tiisaan dhammaan maanta lagu dilay maha salaad nin uu ciidan u dhiibtay naba sugid ah oo in adeerkiis ah farxaan uu ku daray basra weygii hore basra waa la qabtay shabaabku waa laga saaray maxkamaday ku lahaayeen saraakiilaa ku dhimatay howlgalkaas basra shabaabka looga saaray saraakiilaa ku dhimatay waa laga soo baxay galabtii haddaan deegaanka lagu nagaanaynin hogaamiyaal la yaqaan lagu beegsanaynin maxaa dhalinyarada lagu leynaya dadka lagu leynayaa oo ciidanka tiloogiya looga soo baxa hadda agaasime mahad salaad oo nabad sugidda soomaaliya maamulayay 2 habeen iyo 2 maalin barcada joogay howlgalkan basra diyaarina basra muhiimadda istiraatiijiyadda leeda ma aqaan oo subaxna inta la galo habeen galabtiin looga soo baxayo marka waxay in saraakiil gaara lagu beegsado oo lagu bartilmaameysado marka waxaan leeyahay walaalkay saaxiibkay jenaraal farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole allaha u naxariisto samar iyo iimaan allaha ka siiyo qoyskii qaraabadii ehelkii iyo asxaabtii uu ka baxay taariikhdiisoo kooban faahfaahsan meeshuu ku dhashay asalkiisii reer xamar bilow ahaa degmada wardhiigley haddana wuxuu ku noolaa waa beri hoygiisa ahaa reer mudugna waaya nin reer hobyooda marka inaan kusii dheeraada ma rabo caddeyman intaan ka badana la keeni doonaa kolley walaalihiisa dowladda ku jira booliiska ku jira ma raba in hadda magacyadooda sheeg sheego marka allah u naxariisto marxuumka